wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo ku kurgalaysay xaaladda guud ee abaaraha dalka ku dhufatay ayaa waaxda wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland qaybtooda degmada Doobley isugu yeedheen kulan degdeg ah hay'adaha ka howlgala degmadani Doobley kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa waxqabadka hay'adaha iyo xaaladaha abaarta baahsan ee ka jirta deegaanada Jubbaland sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa iyo isla xisaab dab ah oo dhex maraya hay'adaha iyo wasaaradda degmada Doobley iyo tuulooyinka ku geedaaman ayaa kamid ah degmooyinka ay sida weyn u saameysay abaaraha dalka ka jira waxaana kulanka isxog waraysiga wasaaradda iyo hay'adaha goobjoogayaalka ahaa isuduwaha wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland Cabdimaalik Budul agaasimo waaxeedka qorsheynta wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka محمد عبد أحمد أقاسم واحد كدبقلك وساردها قرقار كمارينتا إيا مسيبوينك عبد حسن دوقة دقمدا أفمدو إيا دمانها يدها كهول قلا دقمداني Doobley إسحق ورئيسي دير كديب وحاو تشيد ككولان ككور بحيي أقاسم واحد كقرشينتا محمد عبد أحمد ما أنتو بوحي كولان كيانا كولان كهيدا بالله نوقف طولمي من هذا Doobley الحمد لله كنت عم باي نوقف طولمي waxaana ka wada hadalnay si hay'adaha u wada shaqeeyaan dardargelin iyo sinaan loo sameeyo bulshada loogu adeego waan soo barfaynay dhammaan waxaana ka hadalnay waxay wasaaradda billahan soo qabatay waxaan ka soo hadalnay assessment soo qabtay tuulooyinkii waxaan ka hadalnay roobka siduu ahay waxaan ka hadalnay daaqi siduu ahay midda kale waxaana ka hadalnay dhanka beeraha iyo badxaranka ayaan ka hadalnay marka ma sha Allah shirkadu wuxuu noo soo dhamaaday si aad iyo aad u wanaagsan wixii ku soo baxana hay'adahan baan la wadaagi doonaa dhankiisa isuduwaha wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka Cabdimaalik Budul ayaa ka warbixiyay kulanka ay maanta la yeesheen hay'adaha ka howlgala degmadani Doobley waxaana uu faray hay'adaha sidii ay u dardargelin lahaayeen shaqooyinka dadka tabaalaysan ee ku soo barakacay kaamamka dawladdu ay ka hirgelisay degmadani Doobley aniga magacaygu waa Cabdimaalik Budul Maxamed waxaan ahay isku duwaha hay'adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka u jooga Doobley waxaan maanta sheekaraynay oo aan isugu yeernay dhammaan hay'adaha ka howlgala deegaankan ama degmada Doobley waxaa kaloo nagala soo qayb galay gudoomiyaha degmada Afmadow waxaa kale oo iyaguna noo yimid kana soo qayb galay shirka billaha ahaa ee wasaaraddu ay qaban jirtay oo safartan ay nasiib u yeelatay degmada Doobley in lagu qabto laba agaasimo oo ka socda wasaaradda gargaarka ama agaasimo waaxeedyo weeye kuwaas oo qaybta planninga iyo qaybta qorsheynta ka kala socday meeshaas oo maanta la isku arkay waraysi aad u xeeldheer iyo waxqabadka hay'adaha annaga oo ka hortagayna insha Allah tacaala wixii ay hadda hayeen la xisaabtamaynay waxa soo socdana doonaynay in aan ku yeelano aragti midaysan oo labada degme ee Afmadow iyo Doobley ay labaduba goobjoog ku ahaayeen sidaa daraaddeed waxaa horay waqti aan fogeyn degmada Doobley isugu yeeray hay'adaha samafalka ee ka howlgala degmada Doobley dhammaanteed madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam annaga oo daba soconna talooyinkii iyo awaamirtii uu isagu bixiyey yaan annaguna si aad iyo aad u xeel dheer ugala hadalay hay'adaha ummadda waxay u qabanayaan inuu ahaado wax muuqda oo transparency ah oo la wada og yahay oo dhammaantana aan ku qanacsannahay sidaasa shirkanagu iyo daaranaa sidaa daraaddeed waxaan mar kale ka codsanayaa hay'aduhu inay waxaa la yiraahdaa
nin hulaab xun inuu wax qarsan baa la moodaa iyagoo waxqabad ku yimid dalka haddana inaan waxoodu qarsoodi noqonin ee xafiisyada ku shaqada leh ay la sheergareeyaan oo la soo macdiilaan ama maaragtay la wadaagaan waxa ay rabaan ummadda inay u qabtaan si makhraati loogu noqdo si maxay ahayd waxay qabanayaan wax lagu qanacsan yahay uu noqdo iyada oo aan ognahay maciishadiina inay kor u kacday abaarihiina ay isdaba joog noqdeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu baahidaa isagu qaadi karo isagana aan cabasho u nahay oon ka codsanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu raxmad iyo roobna na siiyo ummaddiisana gargaar waasaca u fidiyo sidaa daraaddeed intaas umbaan hadda rabay inaan hay-adahan ku booriyo maxay ahayday dadka mas-uuliyadda iyo maamulka u hayaan ay la shaqeeyaan warkayguna insha allahu tacaala intaas ku kooban yahay. ugu dambeyntii saraakiisha wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay u kurgaleen kaamam horle oo maamulka Jubbaland ay uga hirgeliyeen barakacyaal horle kuwaas oo 340 hooy oo ay gabaati ka dhigtaan si ku meel gaar ah uga hirgeliyay degmadani Doobley waxaana ay noqonayaan kaamkii afraad oo markaasi oo ku yaala degmadani Doobley waxaana mas'uuliyiinta si wada jir ah ay u wareysteen shacabkii Soomaaliyeed ee abaartu ka soo xaalufisay xoolahoodii ay manafacsan jireen. Sharmaarke Mahdi Cabdi, Radio Kismaayo, degmada Doobley, gobolka Jubbada Hoose.